dadka youtube-yada iyo gala xariif miihi anigu waxyaabaha waxaan old school baan hado ma aqaan habeen dhaweyd baa anigoo wax iska taabanaya bahalka fartayda meel iskaga dhacdo uma bajeedin runtii saamid baa qaylinaya xididadaas waa kacsan yihiin markii aan arkay runtii waan xiiseeyey waxa uu ku hadlayay anu xiiseeyey laba qolo siduu sheegay laba qolo oo muu ka dhigay waxa Soomaaliya maanta haysta waa culimada iyo siyaasiyiinta in ba Soomaaliya barta ay maanta taalo markii horena dhigay imikana ku haya waa midaan anigu aqoonsanahay runtii sababtu tahay marka lafteeda ya culimada ka hadashay wuxuu war gabadh lug yar in yar qaawisay hadalkeeda maxaa keenay shabaabkan dadkii laayay qaxan abaarahan ibtanina haystaan maxaa uga hadli weyday dad culimada tii waxta siyaasiyiintii ummadan baqtiday ee wixii aad ku bixinaysaan muxuu ahaa mooshinada kontonka iyo 100 kun lagu kala qaadanayo maxaad ugu weecin weydeen oo siin weydeen nin warintii way gashay hadda siyaasiyiinta waa ku jira ogaad يعني waxaan doonayaa inaan inna gaar u qaadan bahash qolada waa markii ugu horeysay runtii aan dhageysto umana jeedina fartayga dhacdo wax badan oo suurtagalana wallahi way ii sheegeen oo waan dareema waayo waxaan arkayay oo badan oo far badan bay sheegeen min fadlakum muxuu ahaa formkan aad meesha ku fadhidaan yaanu noqonin cad ciid idinkaga dhacay sida culimada ka hadlaysa gabadhii Romeelka heesisa war maxaa keenay dambi haday tahayna iyada u taala hadii kale laga sii gudbano qofkii taga iyo u taala laakiin min fadlakum sida culimadaas uga hadashay waxaan loo baahnay shirkinan yaan loo kala hadlay wax muhiim ah oo ummadda Soomaaliyeed wada anfaca inaad ka soo saartaa